kulankan magaalada Dhuusamareeb isku yimaadeen ururka haweenka degmada Dhuusamareeb ayaa waxay uga soo horjeesteen hadal dhawaan ka soo baxay qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Dhuusamareeb kaasi oo uga soo horjeesteen dawladda federaalka Soomaaliya. Haweenka maanta kulanka ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay sheegeen inay ugu mahad celinayaan dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena waxay sheegeen inay raaligelin ka bixinayaan hadaladii dhawaan ka soo yaray qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Dhuusamareeb. Jamaaca isu yaqaan sheegtay ee madaxda qaranka aflagaadeeyay waxaan u diraynaa baaq nabadeed ha ka daayaan madaxda qaranka dhibaatada ay ku wadaan ha ka daayaan dadka walaalaha kala geyntooda ha ka daayaan darbiyo isku cadaadista meeshan qaar waa ka dhamaaday inta oo waa dhamaaday dadkiina dhinac ka raaca gabdho. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dawladda federaalka waa soo dhaweynayna awalna waa aan soo dhaweynaa hadaan ururka haweenka dibka ka jiraan ururka haweenka ka mid ma ahan wax aan shuqul ku leenahay maan hadaan haweenna bulshadan u dhaxayna anagu shuqul kuma leeyin dagaal iyo baaq midna kuma leeyin dawladda waxaan ku soo dhaweynaynaa gacno furan hadaan ururka haweenka wax alla wixii urur haween dawladda ugu yimidna waxaan rabnaa inaan barajees ka bixino dawladuna raali ka ahaato raali kama ahin erayooyinka ka wada yeeraya dumarka kama ahin raali dumarna wuxuu ku baaqaa nabad iyo heshiis iyo farxade kuma baaqo dagaal iyo dhibaato wiil kuma baaqo. marka labaad baaqa nabadeed oo soo jeedinayna maanta wuxuu yahay in dadka deegaankan degan anigu waxaan ahay sideeda ururka haweenka degmada caasimada Galmudug xog hayntiisaan ahay magacaygu waa Luul Xasan Salaad waxa weeye sideeda anaga wiilasheeni baa jooga odayaasheeni baa jooga walaalaheena jooga dagaal uguma baaqayno qof muslina dhiig wiil ee dagaalna wiila ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan ugu baaqaynaa muslimka meel walba uu joogo in uu dagaal qof walba oo muslim uu ka nabad gal maxaa jira dhiiga islaamku ma banaana in la isugu dagaal la isugu yeeraana ma banaana waxaan u sheegaynaa dadka degan deegaankan iyo dadka muslimka oo na maqlayaba inaan anagu nabad wadno inaanan dagaal wadin in aan dawladda federaalka ah ka raali gelinayno madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre wasiir sabriye wasiirka arrimaha gudaha waxaan ugu baaqaynaa waxaan ka raali gelinaynaa dhibkii gabdha kamida deegaanku ay u geysteen oo dagaalka ugu baaqeen soo kicisay waxaan ugu bedelaynaa oo cunta ku matalaynaa in anaga nahay haweenka nabadda jecel aan u shaqeyno qarannimada iyo wanaaga iyo horumarka ummadda aan ka soo jeedin waxa waaye iyo wadanka degmada meesha macnaa aan markaas deganahay oo joogno waxaan leenahay horta wadankan nabad baa ka jirto marka koobaad nabad ka jirto maxay waxa lagu wada joogaa nabadgelyo lagu wada joogaa isjacayl lagu wada joogaa wanaag iyo sharaf baa lagu wada joogaa dhibka la sheegayo ee meelaha la taagan yahay kama jiro. Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Filsan Somali Cable TV Dhuusamareeb.